قادنا markaan xarafka b ayaan qaadan doonaa waxa b na la siiyay tan 7 by over 2 alif na la siiyay qaab waxa uu qoran tahay marka radian ah 7 by over 2 alif waxa uu kala jibinaynaa labo waxa leenahay intee ka timid asal ahaan waxay ka imaatay asal ahaan tan 4 by over 2 alif oo lagu daray 3 by over 2 alif ayay ka timid kadib waxaan leenahay 4 iyo 2 alif waxay wadaagaan 4 ay wadaagaan intan 4 u qayb waa 1 intan 4 u qayb waa 3 labadan waxay wadaagaan 3 inta 3 u qayb waa 1 intan 3 u qayb waa 4 ugu dambeyn waxay noqon doontaa tan halka waxa naga soo baxay 4 u qaybin 1 by ku dhufo waa by halkan hadda 4 u qaybinana waa 3 tan 3 by over 3 walaasaan leenahay halkan 3 u qayb waa 1 by ku dhufo iyana waa by oo loo qeybiyay marka 3 u qayb waxaan leenahay 4 hadaba halkan waxaan ku haysanaa marka tan 7 by over 2 alif marka la sii fududeeyo inay u dhiganto times by over 3 oo lagu daray by over 4 hadaba waxaan leenahay waxay u eg tahay tan a plus b oo a waxaan noogu taagan by over 3 b na waxaan noogu taagan by over 4 kadib waan furfuraynaa tan a plus b si loo furfuri jiray waxaa loo furfuri jiray tan a waxaa loo furfuri jiray tan a oo ku darsan tan b oo loo qeybiyay 1 minus tan a oo ku dhacsan tan b a maanta waxa igu taagan marka halkaas igu taagan kaliya sameey waxaan leenahay tan a oo a booskeedu waxa u taagan by over 3 oo lagu daray tan b booskeedu waxa u taagan by over 4 oo loo wada qeybiyay 1 minus tan a waxa noogu taagan tan noo soo qaad booska a waxa noogu taagan by over 3 hadana tan inoo soo qaad booska b waxa noogu taagan by over 4 marka meeshaas joogno waxaan imaanaynaa dhinacan oo aan ku shaqeynaynaa insha Allah intii hore noo soo qaad waxaan hore u haysanay tan by over 3 oo lagu daray tan by over 4 oo loo qeybiyay 1 minus tan by over 3 oo ku dhacsan tan by over 4 mid walba qiimaheeda ku bedelaynaa tan by over 3 waxay u dhigantaa tan 60 qiimaheeduna waa radical 3 plus tan by over 4 qiimaheeda iyaduna waxay u dhigantaa tan 45 qiimo ahaana waa 1 oo loo qeybiyay waxaan leenahay 1ka inoo soo qaad 1 minus inta waxa ka soo baxaysa by over 3 intan waxa ka soo baxaysa 1 hadii la isku dhufto inta waxa ka soo baxaysa radical 3 intan waxa ka soo bixi doonto 1 hadii la isku dhuftana waxay noqonaysaa radical 3 marka waxaan leenahay tan 7 by over 2 alif marka la sii fududeeyo oo la isku qeybay intaana soo bixi doonto still wali waxay nooga baahan tahay fududeen oo see looma ogolo radical inuu noqdo radical ka ayaan baabi'i doonaa waxaan ku riyoos ku dhufanaynaa 1 plus radical 3 oo loo qeybiyay 1 plus radical 3 oo sababtoo ah hooseeyaha conjugatekiisa ayaan ku baabi'i karnaa kadib waxaan leenahay radical 3 times 1 waxay noqonaysaa radical 3 times radical 3 waa radical 9 xididka ka saar 3 ugu bixi doontaa 1 times 1 waa 1 kadib waxaan leenahay 1 times radical 3 na waxay noqon doontaa radical 3 waxaan u furfuraynaa waa a plus b whole squared oo kala loo furfuri doonaa kadib hoos imow waxaan u furfuraynaa ayada a minus b oo ku dhaxsan a plus b qaabka loo furfuri jiray oo ah a ku dhufo calaamad ku dhufo b ku dhufo saas aan u furfuri doonaa waxaan leenahay 1 times 1 waa 1 plus minus ku dhufo waa minus radical 3 ku dhufo waa radical 9 xididka ka saar waxay ugu bixi doontaa 3 ugu bixi doontaa kora marka waxay naga rabtaa inaan fududeyno oo wixii islahan isku dari doonaa labadan waa constant number isku darsamayaan oo 3 plus 4 waxay noqon 3 plus 1 waxay noqon doontaa 4 kadib radical 3 iyo radical 3 isku darsami doonaa waxay noqonaysaa 2 radical 3 oo loo qeybiyay labadana kala go'i doono waa -2 ee numberka weyn calaamadu wata la qaadana kadib waxaan leenahay -2 gaan labadana u qeybsan yahay aan u kala qaadno waxay noqonaysaa 4 divided by -2 plus 2 radical 3 divided by -2 ugu dambeyn waxaa noo soo bixi doonto 4 divided by -2 waa -2 haye -2 radical 3 divided by plus 2 radical 3 divided by -2 na waxay noqon doontaa minus radical 3 noqon doontaa marka jawaabta ugu dambeyso oo nagala rabo waxay noqon doontaa tan 7 by over 2 alif jawaabteeda ugu dambeyso tan 7 by over 2 alif jawaabteeda ugu dambeyso waxa soo bixi doonto -2
minus radical 3 minus 2 minus radical 3 ayaa kasoo bixi doona sin 40 degree oo ku dhacsan cos 160 degree oo laga jaray waxaan isnaa cos 40 degree oo ku dhacsan sin 160 degree. marka qaacidooyinka qaabka isku furfurayaan kaliya looma barto, waxaa kaloo baranaysaa haddii furfurka lagu siiyona inaad dib u celin karto. waxaan leenahay sin iyo cos oo isku dhacsan oo dhexduna minus ay ku jirto iyo cos iyo sin oo dambayso yaa iska leh qaacidada. waxaa iska leh haddii dib isku xasuusino waxaa iska leh cos sin a minus b iska leh oo waatana sin a minus b marka la furfuro waa sin oo ku dhacsan cos dhexda minus ay ku jirto. so marka waxaan u furfuri karnaa sin a minus b. booska a maanta waxaa noogu taagan 40 degree, booska b na waxaa noogu taagan 160 degree. kadib waxaan leenahay intaan oo dhan waxay u dhigantaa baan leenahay sin booska a waxaa noogu taagan 40 degree oo laga jaray, booska b na waxaa noogu taagan 160 degree ayaa inoogu taagan. kadib waxaan leenahay sin iska soo celi waxaa kala goyn doontaa 40 degree oo laga jaray 160 degree waxaa kasoo bixi doonto minus 120 degree. kadib minuskan banaanku ku dhici doona oo waxay noqonaysaa minus sin 120 degree. sin 120 degree qiimaheedu wuxuu ahaa intaan qiimaheedu wuxuu ahaa radical 3 over 2, yani sin 120 degree waxay reference u tahay sin 60 degree oo waxay noqonaysaa 120 degree. kadib waxaa ku dhici doono minuskaasaa ku dhici doono oo waxay noqonaysaa markaa minus radical 3 over 2 ayay noqon doontaa. halka waxaan kaga bixi doonaa example-ka koowaad ee cashirka labaad chapter 1 xisaab fasalka 12aad. waxaan ku jirnay cashirkii ahaa sum and difference identities for sin and tangent. marka intaan cashir ka bixin muhiimadda aan qaadanayna maxay tahay, waxaad baranaysaa sida la isugu daro laba xaglood oo sin ah, sida loo kala jaro laba xaglood oo sin ah, sida la isugu daro laba xaglood oo tan ah, iyo sida loo kala jaro laba xaglood oo markaasi tan ah. example-ladana waa lagu apply gareyn doonaa oo wadadii hore aan soo marnay processka kii hore aan soo marnay waxba kama duwana, kaliya waxay ka duwan tahay qaacidooyinka ayay ka duwan tahay. angaliskana qiimayaashoodii waxaan kusoo baranay qaybtii hore introduction-ka ah. marka videoyii ugu horreeyay aan soo dhignay daawo introduction to geometry trigonometry daawo hadduu ilaa yiraahdo xaglaha qiimahooda sidaad ku xifdi kartaa, ama waxaa kaloo samayn kartaa scientific isticmaali kartaa insha Allah. intaan haddii aad soo gaartay muuqaalka ka iloobay inaad like noo saarto, asxaabtaadana usii share garayso, youtube-kana subscribe aad noo saarto, sidoo kale haddaad facebook naga daawanaysana aad soo follow garayso insha Allah. muuqaalada way fududaan doonaan hadduu ilaa yiraahdo ku celcesho meesha